rabe lacagna xoogay waxa ku siiyana waa islaha inna lillahi wa inna marka ilaihi raaji'uun qof bay rabtaa inay ku dhoofto jacayl xaggan uga markuu guursan keenay ha baan inankii ka yaabaan sirinankan ilmo dambe ha u dhalin hal baan watay wiil baan watay markaan imaaday markaan xaggan waxaan niyadeeda geliyey inaana ilmo dambe u dhalin dee laba qof ma riixi kartid baan isiri mogta marka isaguna buubsiis buu rabaa inaan dersin ciyaal u dhalaa buu rabaa mogta inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun marka dhowr mar baan u sheegay waxaan ku aniga kuma xambaari karaa anigu dee waad cuslaatayoo qof culus baa tahayoo kuma xambaari karee maadaama ilmo badan haddaan dhalana dee anugu dhabarkaaban ka jabayaa niyahow ciyaalku waan iska yara kala fogfogeynanaa dhowrkii sanaba hal mar baynu mid dhalayna markuu kaasi weynaado ee uu socdo ilaa 5-6 sano u jiraan baa xa kala dhalaynaa marka isagu wuxuu yidhi maya waa inaad ku soconaa bahasha oo ilaahay intuu ina siinaya aynu dhalnaa maalin walba waa ina mid dhalnaa marka aniguna wadankii waan ku cusbaa yaa ina caawinaya hooyadii baa ina caawinaysa gabdhaha iyaga marka hooyadii iyo gabdhahooda wayna caawin jireen maasha allah maamadu maamo fiican bay ahayd sharaf badan maamo hooyo wanaagsan bay ahayd laakiin gabdhahooda ugu weyn baa ku qornayd isaga markaan imaan wadanka gabadha gabdhahooda ugu weyn baa ku qornayd markaan wadanka imi lacag bay ku qaadin jirtay isaga inay hayso camal marka anigu markaan xaggan imid ila shaqana ma aadi karo labadan qof ee yarar midna aan watay oo wiil uu yahay aan dhalay midna kii curyaankaha uu yahay ee iqabay iyo gurigii hawshoodii baa ii taalo dee guriga cidigama caawinaysee aniguna qoritaankii waxa dhan maba fahansanayna isagaa maalini kaxeeyey meeshii baanu tagnay waxaanu tagnay home care ama care dadka baahiyaha gaarka qaba lagu caawiyo wuxuu yidhi gabadhayda xaaskayga igu qora gabadhan qoriddaa sheegaysaa maxay tahay baa aniguna taaganayso anaga isku qoranay aad wadankii keentay maya waa mid kale oo lacag baad igu qaadanaysaa butaagii waa soo tagnay sharciyadeydii baan dhiibay waa la igu qoray ninkii jeeg baa soo dhaca isagaa iska qaata aniguna wixii ma fahansanin gabadhii weynayd way ogaatay waxay tiri ninkii anigaan ku qornaa maxaad iskugu qorta ana waxaan ku walaal qoridda maba fahmina maxay tahay horta qoridda anagu waaba isku qorannahay waddankii isagaa keenay sharciga maraykanka waa iskula jirna maxay tahay walaalo qoriddaad ka hadlaysa waxti ninka lacag baan ku qaadan jiray $3,000 bishii hadda adaa ku qaadatid markaas waagii indhaha ii kala qaaday dee waagii ii beriyo aan idhi haya 3,000 oo dhan 3 USA haa ninkii aan weyne waxaan ku uri niyo meeshii maalintii aad geysay dee ninkana ogow meesha kastuma laga xidhi lagu ka go-an yihiin waan xambaaraa waa furi hawso waa lasii gurguurtaa ma fahante halkaasu sida raha intuu labada qoortay qabsadaan jaranjarada ixda iga baxaysa miskaxay xanuunaya waa tigayo meeshii waxaan ku niyo maalintii aynu tagnay meesha maxaad igu samaysay sharciyadeeda waa jeeg baa lagugu qaadanayay baa layidhi oo abaaya ii sheegtay adiguna adigii isku kay qoray lacagta $3,000 USA baa soo dhacaysa xaggaad geysaa anigu la reerkayga dollar uma diro aniguna dollar ma hele waad dab darantahay buu igu yiri gabadh yar wuxuu reermiyaho aan nolosha baray baa tahay waxaa kama hadli kartid afaarahan ma geli kartid gurigan baad joogaysaa aniga wiilkaygaad maxambaaraysaa saasuu ku yiri haa adkaatay hadda adkaanaysa maxaad samaysay marka aniguna caataan ahay naftigu ma jirto oo muddo sanada 8 bilood dhadhow aan xambaarayo jaranjarada markuu ka soo degayo isagaa uu si yar qaab u yaqaan uga soo degaa laakiin koridii baa balaaya ka taagan tahay oo forsun buu dhahayaa dhabarka un baa u ridanayaa daasaan u hayaa marka maxaa way ma dhuusaysaa marka war dhuusiya wax kale oo isku dareen uun ninkii baan jiidaya jawaan ciida qofkuna markuu curiyaan yahay caloosha halkaas joogtaa bariis iyo hilib falfala waxaan ahayn lama cunayo dhuusi ka weyn ikaxebu ka oranayaayo hilib falfala nin carab uu ka soo gadayaa falfal awlal bosa u dejinaya caloosha halkaas joogtaa naasabaayadu buu oranayaa 6 in the morning sabaayadu 6 subaxnimo sabaayadii baa dubaysaa
waxaan ku iri maraq cad kari buu koranaya anigu maraq cad ma aqaanay suqaar iyo hilib iyo xas hilib kari cagaha xagna cagii aan jikada taaganahay holiday ilaa 6 to 6 xagna waan ka xambaaraya luguhuna de waa ebro markuu doonana wuu ka soo degaayo labada gamcood ba jilif noqday suu ugu ordayay mogtahay siduu ugu orda wax kaga dheereeya labada gamcood ma arag laakiin waxaan ku iri afkaas ku qaban maayo cay naya saani kuma keensan maxaan kuu keensaday xaggan saani kuma lihi anaa kule ilaahay ka sokow aniga markaa ayaamihii hore dhexusir jirba horta sharciga iska hel horta baasaboorka qaado horta kan samee laakiin nafiiguma jirto markaa romantic ma yahay markaa isagu waa romantic uu yahayna ma lehe inuu isagu iska kay leeyahay buuba u malaynayaayo aniguna markaan xaggan imaaday wal hore dhoofin baa yahay xaggan markaan imaadayna waxaan wax kaloo bayla noqdo waxaan aniga lafteedii ugu jirta markaad baasaboorka qaata ku guji iskaga tag baa haysa moogta adigu macnaha waxa weeye inaad ka carartidba inaan ka cararo hadduuba dhadhamadiina iga ilaaliyey oo mara soo gadan karin oo isagu adeegii oo kaadharka guntiga ku urursanayo oo reerkayga waxba siinayn oo ilmihii xafaayadu soo gadayn oo aniga waxba ii qabanaynin dee maxaan ka qabtaa meesha oo reedi aniguna waxaan bilaabay telefoonkayga markuu dhaco ninkii aan xambaaraya maha mar laanu telefoonkaasi soo dhaco dhaydhaydhaydhay lawaha kusoo ordaya laba gamcood wuu la boodaya yuu ahaa maxaad rabti telefoonkiiga telefoonkiisu ku xawiil faras ku noqonaya markuu telefoonkaagu dhacaba haa ninkani dee wuu laga go-an yahay uun mooyaane abiyuusarkii ugu weynaa weeyaano xagna wuxuu isleeyaha naagtan cunaqabatayn saarayaan qof soo wicin xaggii dhadhamada ma bixinaya lacagtii waxaa kuri guriga yaroo low income wuu iska deganaayo low income waxaa la dhahaa guryaha dowladdu bixiso guri dowladdu leedahay iska deganaa oo jaban buu iska deganaa guriga wax yar baa la bixiyaa jeebadu ku urursanaya lacagtii war ibtilo aniga marka gabdhaha banaanka markaas hada u baxo xoran xaafadan hay'adan dad xun baa degan ha bixin maalinkii dambe baan wiilkayga yar sinta ku qaatay banaankaan u baxay banaanka markaan u baxay inan baanu isbaranay waxay tiri haa walaal maxaga baa degantihiin haa oo ma hebelkii curyaanka ahaa naagtuu keensaday baa tahay markaasaan ku iri haa wiilkan ma isagaa kaa dhalay haa wakaas walaala dee barasho wanaagsan haddaad wuxuu bahatay hebla ayaa la dhahaa gurigan baan deganahay ii imow marku seexdaan cararaa gabadhii waan u tagaa neefta igu taaganoo cidba ma arko gabadhiibuu maalintii dambe albaabku garaacay wuxuu iri naa gabadhani kuma soo geli markaa gabadha adigu dee waa iskaga soo yaro nafisaayo waa la soo yaro sheekaystaa ileen qof wadankii ku cusub baanahay moogta intay xambad raadinaysaa saad uga baxsan lahayd marka maya weli xantaas maan sheegin laakiin may balaynin waa wuxuu gadaal bay ii taalaayo adigu indhaha un baan isleeyahay xoogay wax indhaha kuu yaro furo oo aad wax ka yara fahantay inaad aragto un baan isleeyahay mogta gabadhiiba waxay ku tiri walaale maxaad faraaxiina umarsan weyde saan kuri xinaba ma soo gato magaala suuqa ma aado gaadhina ma wadano gabdhaha dimaashayaasha un baa noo saadeego ma raaca anigu say gu tiri gabadh xaafadeeda joogtaa xinaha marisee aan kuugu wacaha kuu buufisee gabadhii bay igu wacday sa walaa lacag ma haysta aan iskaga bixiya iga dee farahan madmadoobeysanayaa saytaanaha kaa bixinaya gabadhii baa u yeedhay gabadhii bay ku tiri noo mari labadayadaba intaan xinaha marsanayay wiilkii yaraaboo kii isagoo gurguuranayo buu hooyadii hoos u soo degay buu hooyadii gura soo gargaraacdo u timiyo waa gabadhii meeda ma ogi hooyo meelay aaday waan waayo telefoonkeedina waa kan markaasay tiri hoogtay waad ba'day xaafadii bay kaa barata waa xaafadii soomaalida deganaa mogta xaafadii bay kaa barata dee ilaa ay caawa wiilkii yaraabay gabdhii yaraa reerkii ii hayeen xinihii baa la ii mariyey gabadhii cuntay isiisay shaah bay isiisay waa iska soo tegey qabow baa jiray markaa kaba dacasa baan xidhnaa gabadh xigta walaali kaba maxaad u gadan weydaysaa walaal lacag ma haysto say u tiri haye kaba haygan hoo qaado marka lacagba kuma siimaya ninku shilin dollar ima dhidhin marmarkuu doonay haddaan diidana fara bir aad moodidoo geed ahbuu saa igu qabanaya waa jabaysaaba hadduu saa kuu qabto waxaas deetana waa siinaysaa marka dee waad ku khasbantay haddii kale dee banaanka laguu saaraya lan gurigana isagaas kale mubaasalad buu kula soo baxamse war maye nug yar weeyaan nug yar waxaan ku iri intii ka maqneedba xagga lagaga dar marka waxa ku iri meeshiiba gabadhiiba kabay soo siisay gabadhiiba toob iyo xijaabi soo siisay gabadhiiba alaabi soo siisay orday igu tiri gurigaagii mariyade ma haysta waan qaawina
gabadhii baan iska soo raacay oo gurigii baan imi markaan imi naagtii xinna loo soo mariyey oo kaba buura xidhan oo jaakad xidhan oo maryo kale bac ku wadata isagii hooyadii fadhigii fadhiya allaala markay saantii baxday buu igu soo qamaamayba bal wixii labadii lugood ee labadii gamcood bal waa tiraya ka celiya inuu iduluu rabaa haddaanan midi kugu qalin haddaanan ku gowricin yaa ku ogina meeshan haddaan kugu qalo hadda iskooba uun baan soo qaatay baalka guriga lagu xaaqo isagoo meeshii fadhiya marka hooyadii walaashii tageen yaa wiilka yaraan xoolka un baan ku riday isagana waa qabta iskoobihii baan la dul istaagay dem inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ma ninkaaga dilaysaa waa jilciye barlaatiga kaga dhigayso haa la baayey 911 iyo wacaay waa kani waa soo qabtay telefoonkiina waan ka qaatay carab baan ku halka midi haddaanan kugu qalin bahaliyo bila edabka anaga maxaad moodaa inaad naleedahay waraa naga tag baan ku wiilka yaraaboon halkan baa gabadhaas masaxsantay misoo khaldantay gabadhaas ninkeedii curyaana dilaysaa markii horena ugu tala gashay ninka kasii baxsatada ilaahay baad ku dhaarimay saxsantay dumarku waa naxariis ma laha fariid bay soo wada qorayaan ha aaminina fariid oo aaminina fariid bay soo qoraysaa xabiibi aad kaa tahay cabdiqaadir ma rabin horta waa iskala yara joogi lahaa markay ii gaadha uun mooyaane laakiin hadda waa nigan iskala joogay falfalkiyo jikada dhex taagan maanta dhan moogtee waa ka uun bishinta barartay nabarka iskoobii baan afka kaga dhuftay bishintaa dilaacday ta sare dibinta saraa laakiin maxaan uga ilaaliyey madaxa inta badan marmar mooyaan madaxa waan uga ilaaliyey marba intaan ka fogaadan ku sidaaya feedhaha iyo garbaha waa ka wey markuu arkada inaan u naxayn inaan midi soo qaatay baan kulaa ku qalayaa haddaad halkaas soo dhaafto dee mataqaana waxan waa 2 gamcood keliya 2 gamcood buu ku warday wax ka dheereeya lama arkin markuu jarajarada seexanayo gurigan wuxuu rabaa inaan xambaaro carbaan ku waryaa waa ka talaayada guray waa ka meelkan fadhiistay oo hooyadii gabdhahoodii ku yidhi naagtii ay dishay ilaahay baan ku dhaariyay dumarku balin curyaan ay dilayaan ka waran ay ku faraxseen fax sax way soo wada qoriyaan waba curyaan 2 gamcood oo kaliya tawayba waa runtood waa 2 gamcood oo dhib badan waata hooyadii reerkoodii buu hoogaya baay gabadh naagti way dishay waa kan buu yidhi way soo carareen naagti way yimaadeen guriga markay yimaadeen intaan arkay inay soo socdaan baan inta wiilkii yaraa sinta ku qaatan reerka islaameed u galay dariskeygaha waxaa tiri naa maxaa dhacay ninka mar walba igu soo qamaamaayo waa inuu dilo rabaa labada lugood waa ka go-an yahay 2 gamcood buu rabaa inuu marka anuu hurdaanka baqay inuu cunaha qabto hadduu saa kuu qabtana bir baad moodaa waxaan dhahay qofkan waan ka baqayaaba inuu cunaha qabto rahu dhalay inuu dilaan ka baqayaa waxaan yidhi rahan baan idhi raha waa bahal yar lugaha ku ordo biyaha kasoo baxa waxaan faraha gan baan ninkeedii leeda waa rax ilaahay baan ku dhaariyay waa ninkii soo dhoofiyey waa ninkii soo dhoofiyey ee ka keenay iyadoo xeryaha qaxoontiga dhadhaab ku jirta wey may gurigayga inuu joogo reerkii wayba yaabeen markaan ku uri qofkan baan rabaa waxaa ligu iri kucun waxaa ligu iri kucun baa ligu iri kucun markan baad rabtaa kucun maxaa ku tiri hooyadaha kucun namka baad rabtaa haa kucun yeey bay tiri kucun indha adaga marka waxaa dhacday qofkii isaga ahaa waxaa dhacday reerkan u galay reerka waxay ku yidhaahdeen hayaha gabadha bay ku tiri ha ku noqon yuunan lafaaga kuu dina dusaa yahay ha ku noqonin waxaan kuu geynayaa gabadh kaloo saaxiibanahoo 2 qol degan baan kuu geynayaa qol adiga iyo wiilkaaga yar iska deganaada qofkan hadduu xataa ku dilana waa nin special needahoo hadduu waxa weeyaan waa qof xanuunsanayo hadduu xataa dowladda wuxuu kaga jiraa inuu xanuunsan yahay marka hadduu ku dilo waxa weeyaan dee ku raacmayso jeel ma aadayo adiga unbaa naftaada waayey wiilkana gabdhahooda faraha badan iyo hooyadii buu dhiibanayaa haye waxuuti gabadh saaxiibtay aan kuu dhiibayaa gurigeeda ku geynayaa 2 qol mid ha ku siiso halkaas dhowna dowladdan kuu geynayaa guri ka abalay garayso ka raadso gabadhii waa ninkii gurigaaga ku tiri ka baxsada gabadhii aan nafta kula eeranaye aan ku nafisayay lawaan buuxaaye
reerkii ha soo weeraraan midiyo ilaahay iyagoo baan ku watay dhaaray gabadhaas masaxsantay gabadha ninka kasii ereysa ninka reeraha kala dumanaysa islaameed dumarku iyaga guryaha subxaanallah dumiya moogtiin horta waa sax bay soo qorayaan eeg ku waa soco runtooda dee waa runtooda way fahmayaan gabadhii waxaan ku iri reerku way soo weerareen ani waxaan ku iri wiilkooda ha qaataan marka aniga waxaan maybalayn wiilkooda ha qaataan hadday rabaan wiilka yar ani aan dhalay ha qaataan hadday rabaan laakiin ninkaas awalbana maraykan itaabsiib waan ku imaaday inuu maraykan keenaan ku imaaday markii dambana waaba kande ka daray ee dhadhamada iga ilaaliyey ee burka haddana igu soo qamaamaya isagoo laba lugood laba gamcood keliya wiilkii waxay dhaheen wiilkayga rabnaa wiilka ma rabtaan haa qabsada baan ku idhaana laakiin ereyada ma soo geli kartaan gabadhan anigu ilmahaagii haa way igu qabsadeen waa rabnaa bay dhaheen waa qaataan ku siisay markaa qaataan ku uri ilaa haddii kale way dilayaani naaga iyo islaanis iyo wax isbarbar yaacaya inaa lillahi wa inaa ilaihi qaataan raajicuun ku uri gabadha xitaa ubadkeeda bixisay baad leedahay way saxsanta ubadkeeda bay tiri hooya qaata baan qaata ku bisada uri qaata baan ku uri gabadhii dariskayga waxay tiri walaal ha odhanin qaata hadday dayn waayaan gurigayga aniga haddii qofka hadduu wadankan hadduu qof gurigaaga kugu yimaado waxa weeye haddii la xirxiro booliska waad wici kartaa haddaad wax ku dhufatay xataa iyagaa khaldan caawa dumarku haya khalad way sug caawa khalad iyo khalad la-aan baad isku raacaysaan maxaa waaye waa sax unbaad soo qorisaane waaba qalad bama soo qorisaane ilmihiina ma bixin laydin ilmahaga imse jir baa markaad bixinaysay dee maba bixinina gabadhii baa igu dagaalantoo tiri gurigayga inoogu yimaadeen maadaama gurigayga aniga iigu yimaadeen booliskan u wacayaa iyaga dhan baan jeelka ku ururinaya wiilkana wayna haysanaynaa ha ku noqonin adiguna gabadh yar baa tahay waxa weeye reerkaaga ilmaha yarka ee gurigeena jooga lama celinayo gabadhii way u dagaalantay hooyo fiican bay ahayd wiilkii yaraaban iska haystay habeenkii maalinta xogtay boolis baan idin wacyeedina iga tegin reerkii way iska tageen habeenkii bay gaadhi igu qaaday gabadh walaasheeda oo gobol meel kala degan xaafad kala degan ba ii geyso laba qol degan gabadhiiba wiilkii yaraa ayaa anigiina soo dhaweysay laba qol bay deganayd caydhay meeshii dowladayna geysay waxay noo soo qortay kaar yar cunta ku jirtaana la siiyey aniga wiilkaygii waxaana lagu yiri absolutely free kid baana lagu yiri iyo maamada baa lagu yiri hooyada iyo wiilkeeda waa free inay noqdeen baa layiri is free country bay joogaan marka waxay u baahan tahay inay nolol habiya ku noolaato haya bismillaahi raxmaani raxiim marka waxa dhacday reerkii gabadhii markii xaafadii geysay xaafadii waxaa la isiiyey kaadh cuntada ku jirto lacag ku jirto aan ku adeeganaya aniga wiilkayga yar waxaana la yidhi application buuxi application ma buuxin aqaano laakiin xooga yar baa ii yara bilaabmaa waxbaan qori jiray laakiin system iyo waxba ma fahansani marya ma wato wiilkii waa qaawan yahay ani waa qaawanahay waxba ma haysano guri yar baa nala siiyo 2 qol ah ee dowladana siisay gurigii baana degnay lacag yar baa nala siiyey wiilkii waxaa laygu yiri ninkii na waaba shaqaysaa dowladda saada ii firiyaan waaba shaqaysaa 3000 iyo mordan baa bishii aad heshaa dee lawaniga ninkii curyaanka ha ku qornaa mogtahay lacagtii xaggee martaa mogtahay ma shaqaysaa baa laygu yiri maya baan dhahay oo may waad shaqaysaa intaan ka shaqeeyaa aniga ma shaqeeyo wallaahi ma shaqeeyo indhahan saa u cadaynaya waxaa lagu yiri sug sharcigaaga inuu shaqaysid baa qoran waxaan shaqadan dowladda waxaan dhoon ka wada imaadaan wayna soo ogaano lacagtaas meesha aado jeegaga kugu soo dhaca magacaaga inaadan sayn garaynin adigu jeega markaa inaad saxeexda weeye saxeexa halkan warqadaha laga keenay midigta iyo bidixdaba ku saxeex baa laigu yiri inuuna saxeexa jeegagaa lagu saxeexay uuna kaaga ahayn caddaynta waxaanu ka ogaanaynaa saxeexaas inuuna kaaga ahayn ka jeegaas aad leedahay aad ku shaqayso lagu saxeexay inuuna kaaga ahayn iyo inaad kan labadan ina is yeeshaan baan eegaynaa stiil gabadhii baan iskala joogay waxaa la soo ogaaday lacagtii 4 bilood oo dhadhow aan laygu qaadanayay oo magacayga kusoo dhacaysay oo inaan shaqeeyo aan qornaa inaanan anigu shaqo ku lahayn baa la soo ogaaday ninkii lacagtii baa waxaa layidhi lacagtii dadkii dooday akoonkii lacagtaa lagu sarrifay baa laga daba tegey lacagtii baa laga soo shubtay waa kiisa mogta lacagtii baa laga soo qaaday lacag $7,000
oo jeega ordaysa maalin ha imaato yaab inta la ii wacay baa la isiiyey 7,000 weligaa iyo dhowr 7 kun oo boqol isku xidhanna maad arkinba 7,000 maa tiri $100 ma arag aniga yaab iyo fajac waxani waa maxay $7 baa $7 نعم $7 ليني إذا 7,000 baa liigu yiri maaha $7 oh my goodness waan qaracmay bade lacagtii baa farta layga saaray waxaa liigu lacagta laguguma sii wada daynaya ma taqaanid alaab maxaa kuugu daran aan kuu samaynaa waxaa la soo booday gaari waa la soo booday saliwir gaari intaa gaari waa lagu gadayaa 4,000 baa gaari lagaaga bixinayaa guriga alaabtiisana waa lagu dhigayaa wixii kuu soo harana meel baa akoonkaaga lagugu shubaya alla qaracan badana ilaahay baa curyaankii labada lugood ka hordayay dhabarkii maxaa lasii dhacdhacay baan idhi jaranjarada kaas sidii geel soo cabay baan ixdahayay markaan sii xambaarsanahay maxaad haysay markaa jaranjarada ka baxaysa maxaad haysay inaa ilaahu wa inaa ilayhi raajicuun intaan beriis qoftan kii qabtaa yaa intaan beriis iyo hilib falfala ka dhargiyo iyo sabaayad baan fadhiga ka xambaara markaasaan geeyaa meesha dabaqa ugu sarreysa allaala markaan sarirta dul dhigo laakiin waxaan kaa daba sanqaraya maxaa waay naqas baa kaa soconaya markaa miya naqas mar allaala sarirta ma ku dul tuura halkaas aan ku dhacaan wana biliq markaasaan idhaha laayila alxamdulilah ma noosha waa istaataabtaa waa tagaa hoos baan tagaa guriga xagga hoose mar allaala markaan xagga hoose tago baan oohin la fadhiistaa loo boonaye ma jawaan ciida baad maalin walba xambaaraysa qaracan